السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرديه كسر دوادا فيتشر برايمري سكول مقعي ومحمد شمعالي عبد الرحمن. ما أنتوا حندين دونا English grade 6. 10 كلمات سوق هذا دونا وهويان وgrammar lesson. grammar lesson والنحوها 10 النحوها ويان. past simple tense. past simple tense. past ووحدي simple وواحد فضل tense ووقتي بالمعنى وحويان ووقتي تجي أو فضل. grammar rules. grammar والنحوها rules شروط دوتال. شروط دوتال النحوها. be have do. يا كون وحويان وverb وفعل دويان. مرة وحين قدان helping verb عاوية وهي عاونا فعل كويني عاونين. يا مرة وحين قناين irregular verb فعل كان سيد جوكتران هن أو هذه جرس ببدل. subject أو فعل السماحة. okay be have you do وحناني وحين قدان helping verb فعل عاوية مرة وحين قدان irregular verb وفعل هذه جر اسبدشون جوكتران هن. okay subject فعل السماحة I, he, she, it. waxay qaadanayeen was. waxa kale ay qaadanayeen had. waxa kale ay qaadanayeen did. They, we, iyo you. waxay qaadanayeen were. waxa kale ay qaadanayeen had. waxa kale ay qaadanayeen did. Okay. marka I, he, she, iyo it waa singular waa qaas. وانا pronoun ومعويل. they, we, you وجمع أيكنا وانا pronoun ومعويل. وحقادنا أن وحكوا يقادنا had وحكوا يقادنا did. okay grammar rules. وحويان grammar والنحوة rules شروط طال. usage استعمالك. we use وحنا استعملنا the past tense وقت تيجي for وحنا استعملنا وقت تيجي كو something happened واحد دعي once هل مرة دعين in the past مرة يجي تصالحان I met وحنا لكل مي عبدي ين لكل مي in the year سنة كا لابد كون يو لحي طبعا أين عبدي لكل مي. okay قيبتن كلام بلابينا مركا qaybtan kalan bilaabeyna waxa weeyaan wali wax ku guda jirnaa isticmaalka loo isticmaalo past tense something mid la wada weeyaan something waa shay that happened dhacay again and again. something that happened wax dhacay again and again macnaheedu waxa weey wax soo laabana weeyaan mar walba dhaca. eg tusalaan we filmed waxaan duubnay many English videos مقالب بدن أو إنجليش أيام دوبني. we وسبجيتين filmed وفعل كان وأنا past tense وحدي ويان film معناه هو وان دوبني many English videos مقالب فرق بدن أو إنجليش كا over the years سنة تيجي. okay استعمال كلابات something that was true وح رون هاي for some time إن يري رون هايان in the past مرة يري رون هايان but not anymore لكن يمكن رون ما وواحد مرة رون هاي ونيمكن رون هن. تصالحان I lived وحن دقناي in برعو ين دقناي for 6 years. I lived وحن دقناي in برعو ين دقناي for 6 years. لحسنا ين برعو دقناي لكن يمكن ما دقني معناه هو يقف من لحسنا يو برعو دقناي لكن يمكن ما دقني. I وسبجيتي lived وفعلك ودقنا ويان وانا وحدي in برعو for 6 years لحسن. okay استعمالك الحويان we often مر والبا use معنا استعمال ago تجي with the past tense يا مرك واحد تجي أنا استعمالنا ago هي واحد تجي ويان يجي تصالحان I was subject here went تجي ويان وانا past tense واحد تجي لكن الفعل كان محنقنا irregular verb والفعل كان جوكت ذهن to Barbara 3 years ago to Barbara 3 years ago 3 سنة كهر أيام تجي Barbara
formation sida loo sameeyo affirmative waa marka hadalka caadi weeyaan affirmative regular verb waa ficilada joogtada subject waa ficil sameeyaha logay verb waa logay ficilka logay ed ya macnaheedu waxa weeyaan regular verb ficilada joogtada markay e u dambeysana d loo geynaa markay waxba u dambeeyna waxa loo geynaa ed tusaale ahaan eg we walked we was subject walked waa ficilka to schoolka marka we walked waxaan u lugaynay to schoolkan u lugaynay marka walked waxa weeyaan waa past tense waqti ya waana regular verb waa ficilada joogtada waayo waxaan raacnay ed okay qaybtan kala bilaabayna marka affirmative idan waxa weeyaan waa hadalka caadiga irregular verb waa ficilada joogtada ahayn qaacidada guud waa marka subject waa ficil sameeyaha logay irregular verb ficilada joogtada ahayn marka ficilada joogtada waxaan ku wada arday waa ficilada hadda jeer isbedesha waxay leeyihiin past tense waqtiga ay leeyihiin iyo past participle in wax hor u tagay Egypt Salan, we went to school at 7 a.m. We wa fi'il sameeya waanaka went one tagni to school ka at 7 a.m. waxaan tagnay 7 subaxnimo ee marka halkan went wa ficilkan waana irregular verb wa ficilada joogtada ah negative wa diidmo okay qaacidada guud waa markay diidmo tahay waa subject waa ficil sameeya logay did maxaa dhaanay waa ficil caawiye maxaa kale kamid tahay waxa kale kamid tahay helping verb ya waa ficil caawiye waxa kale soo galaysaa irregular verb ficilada joogtada ah logay not oo diidma logay base verb waa ficilka guud eg tusaalahan they waa yaka didn't eeg marka did waxa weeyaan waa helping verb keena ficilkaana joogto maaha oo waqti not waa soo gaabsan fiiri not waa diidmo eat waa ficilkeen breakfast quraacda this morning subaxaneed okay halka markii arday halkan waxaad ogaataa marka did soo qaadatid ficilkaada wuxuu ku soo noqonaa present tense ayuu ku soo laabanaa sababta waxa weeyaan did ida ayaa past tense waqti did maxaa kaloo dhahnay waxay kamid tahay irregular verb ficilada joogtada ah oo hadda jeer isbedela marka sababtaan markaan eat waa ficilkeen eat muxuu ugu soo laabtay present tense waayo did ayaa past tense waqti saas awgeed markaan eeta maadaama did ay tahay past tense waqti ficilkeen wuxuu ku soo laabanaa present tense wax iminka taagan ayuu ku soo laabanaa breakfast this morning okay arday halkaas aan ku joojinaa insha Allah cashirkeena waa noo xiisad dambe insha Allah halkaas aan ka sii wadaynaa wa alaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh